Ku soo dhawaada sheeko la magac baxday Calaf iyo Jacayl. Shantii galabnimo ayay si kedis ah ku kulmeen Khalid iyo Hoodo, isla markaana ay ku kulmeen goob hotel ah oo uu ka shaqayn jiray Khalid wuxuuna ka ahaa kabalyeeri. Khalid wuxuu ahaa wiil aad u wanaagsan, wuxuuna ka mid ahaa ardada loogu jecel yahay jaamacadda. Khalid waa bulshaawi haddana ilbax ah. Khalid waa danyar balse kama muuqato oo qalbiga ayuu qani ka yahay. Khalid gelinka hore wuxuu tagaa jaamacadda, gelinka dambena wuxuu ka xoogsadaa hoteelka. Hoodo marnaba kama filayn in halkan oo kale ay ku aragto, balse waxay u khushuucday sida uu iskugu kalsoon yahay una ilaalsanayo shaqadiisa iyo waxbarashadiisa. Inkastoo markii hore ay qalbiga iskala hadashay oo istiri Khalid muu iska kaa qariyo. Khalid wuxuu aad ugu farxay aragtida Hoodo, wuxuuna u arkayay inay tahay fursad dahabi ah sababtoo ah weli qalbiga Khalid ma soo bandhigin ujeedadiisa uu ka doonayo Hoodo. Khalid wuxuu isku dayay inuu Hoodo u sheego inuu arrin muhiim ah ka leeyahay, balse waxaa jaaniskii uu quudareynayay ka dhicisay gabar habayr u ah Hoodo oo la socota uu meel uu ka maro waayay. Fursadda halkaas ayuuna ku dayacay. Hoodo waa gabar Alle ku manaystay qurux oo jirkeeda laga ilaaliyo xubin laga naco. Hoodo waa gabar xishood badan oo hadal gaaban, isla markaana waalidkeed ku koriyeen tarbiyad wacan taasoo dhalisay inay noqoto gabar had iyo jeer asturan. Waana hablaha dhifka ah ee ugu ixtiraamka badan jaamacadda. Koox uu Khalid ka mid yahay ayaa waxa ay abaabuleen in ardada u baxdo dalxiis, sidaa darteed Professor Aadan arrintaa wuu ansixiyay oo waa uu ka oggolaaday dalxiiska. Waa abbaaro shantii subaxnimo. Khalid waa uu soo kacay, wuxuuna isku diyaariyay dalxiiskii la magac baxay dalxiiskii caashaqa. Waa koox dhalinyaro ah isla markaana ku bahoobay jaamacadda ay wada dhiganayeen, waxayna ka koobnaayeen 15 wiil iyo 10 hablood. Waa dalxiis si farshaxanimo leh loo soo diyaariyay. Waxaa kooxda dalxiisayaasha hogaaminayay professor ka mid ah macallimiinta jaamacadda. Dhammaan kooxdan aad ayay u xiiseynayaan dalxiiska, waxayna inta badan sugayaan waqtigii la baxayay oo ku beegan 14 bishii 6 2010. Waana maalinimo Talaado ah. Qof kasta oo ka mid ah dalxiisayaasha dhowr hore ayuu isdiyaariyay, xiisaha iyo xamaasadda ay u hayaan awgeed. Waxaana isna diyaar ah gaadiidkii ay raaci lahaayeen oo ah bas iyo Land Cruiser. Waqtigu waa gu, dhulkana aad ayuu u rooban yahay. Goobta dalxiiska loo tagayo waa dhul badanaa dadku ay u dalxiis tagaan, waxayna caan ku tahay bad, buuro iyo weliba togag waaweyn oo biyaha ay maraan, iyo weliba dhul cagaaran oo doog leh. Marka ay maraysay 6dii subaxnimo, wuxuu qof kasta heegan ku ahaa kursiga gaariga. Professor Aadan markuu hubsaday in ardadu ay dhan tahay ayuu fadhiistay kursigii loogu talagalay. 6:15 subaxnimo ayay ka ambabaxeen magaaladii ay joogeen. Dhammaan dalxiisayaashu waxay sitaan sahaydoodii, aad ayay ugu faraxsan yihiin dalxiiskan. Intii ay jidka ku jireen, waxaa gudaha baska ka dhex bilowday hadallo kaftan ah. Dhammaan waa dhalinyaro, waxaa farxadooda u dheereed labiska quruxda badan ee xiran yihiin. Muddo 3 saacadood ayay ku qaadatay inay gaaraan meeshii ay u socdeen. Markii ay dhammaantood dhulka caga soo dhigeen, waxaa indhaha la raaceen muuqaalka yaabka leh ee dhulkani leeyahay iyo neecawda macaan ee ka dhacaysay. Waana goor barqa ah, jawiguna aad u macaan yahay. Professor Aadan wuxuu ardada ku wargeliyay inay fasax u yihiin bilowga dalxiiska. Wuxuu uga digay meelaha khatarta ah. Kadib ardadii ayaa isku qaybiyay koox oo koox walba waxay qabatay jiha gooniya. Khalid wuxuu ka mid ahaa ardada kuwa ugu codkarsan, isla markaana wuxuu ka mid ahaa xubnihii fikirkan keenay in dalxiiska loo baxo. Balse Khalid maalintaa waxay u ahayd maalin ka duwan maalmaha kale, sababtoo ah waxaa maalintaa ku cusub dareen xiise geliyay naftiisa. Markuu baska ka soo degay, indhihiisu waxay si toos ah ugu dhacayeen Hoodo oo intay ardadu dhulka daawanaysay, isagu wuxuu ku sii jeeday Hoodo. Falaaraha cadceedda iyo leerta macaan, jawiga xasiloon iyo labiska quruxda badan ee Hoodo wadato iyo farxadda ka muuqato ayaa mar keliya isugu beegmay. Waxaana halkaa ka dhalatay in Khalid uu dareemo xiiso iyo kalgacayl saa'id ah.
maadaama ay hoodo ahayd gabar aad loo ilaaliyo waxaa maalintaa la socotay habayarteed waxaana adkaatay sidii uu khaalid ula kulmi lahaa hoodo waxaa gelinkii hore lasoo wareego waxaa la gaara duhur islamarkaana waxaa dalxiisyaasha la isugu yeeray inay dhammaantood isugu yimaadaan geed weyn oo hoos leh si loogu qadeeyo khaalid wuxuu codsaday inuu isaga qeybiyo cuntada waayo wuxuu weli raadinayaa fursad uu kula hadlo hoodo khaalid wuxuu cuntadii qeybiyaba wuxuu soo gaaray bartii ay fadhisay hoodo wuxuuna la kulmay hoodo iyo habyarteed iyo wiil ka mid a dalxiisyaasha oo gooni fadhiya isagoo qalbiga ka naxay ayaa waxaa dhegihiisa ku soo dhacay hadallo ay isweydaarsanayaan 3 qof oo ah habayar wiilkan inaad aqbasho ayaan kula jeclaan lahaa khaalid isagoo ka beydiiday wiilka hoodo loo sasabayo ayuu cuntadii u dhigay markuu laabtay ayay la hadasha hoodo waxayna ku tiri walaal waxba maadan cunine nala qadeey khaalid intuu uu yidhi mahadsanid ayuu iska dhaqaaqay markii la qadeeyey ayaa waxaa bilowday sheekooyin iyo kaftan googoos ah balse khaalid kama uu qayb gelin goor casirkii ay tahay ayaa loo dareeray dhulkii loo dalxiisayay balse khaalid kama uu qayb gelin oo wuxuu keligii joogay baabuurta agtooda hoodo waxay dhallinyarada ka dhex weyday khaalid waxaana loo sheegay in khaalid uu ku sugan yahay baska dhexdiisa hoodo intee habyarteed ku dhahday waan soo noqonayaa ayay khaalid oo keligii ah u timid khaalid oo iska maqan ayay hoodo ku soo jeedisay cod dabacsan khaalid aad ayuu u farxay waxaana ka yimaaday dhidid qabow oo ka bilowda madaxiisa kaasi oo gaaray ilaa ciribtiisa wuu jirracooday kadib waxay hoodo su'aashay waxaa dadka ka soo reebay isagoo jawaabin ayay haddana weydiisay dhowr su'aalood balse khaalid intuu qalbiga iskala hadlay ayuu go'aansaday inuu hadafkiisa u caddeeyo wuxuuna yidhi ma ogtahay haweenkiyo hablaynigaagiyo asagaaga oo badan ayuunbuu ayaan qura ma ogtahay haweenkiyo hablaynigaagiyo asagaaga oo badan ayuunbuu ayaan qura urkayga gabadhyay rabbigu abuurood keliku ahaatee urkayga gabadhyay rabbigu abuurood keliku ahaatee balilaali bal balilaali bal balilaali bal balilaali bal balilaali ajasha aakhira weeyo kama hilbaxayse walaal hoodo muddo sannado badana waxaan rabay inaan kula hadlo balse iima suurtagelin hase yeeshee waxaan maanta kuu sheegayaa inaan aad kuu jeclahay waxaan ogahay in aad waddanka ka dhoofayso waxaan kaloo ogahay in reerkiina ay doonayaan inay kuu dhisaan wiilka aad maanta wada qadaynayseen hase ahaatee waxaan ahay qof kuu baholoobay oo ilaa ay xadku jecel balse go'aanka adiga ayaa leh hoodo waxaa ku duxay hadallada khaalid iyo galgaceelka oo la hoos joogay islamarkaa hoodo kuma aysan degdegin go'aanka waxay khaalid u soo jeedisay inuu sheekadaa dib ugu dhigo oo uu ka qayb galo dalxiiska khaalid waxaa qalbigiisa saaqay dareen farxad leh wuxuuna ka ogolaaday inuu dalxiiska qayb ka qaato khaalid iyo hoodo way wada socdaan socod qabow ayay ku laafiyoonayaan waxayna isweydaarsadeen kaftan galgaceelka muuqdo iftiinka cadceedda oo jihada galbeed ka xigta iyo dhulkoo cagaaran iyo jawigo xasiloon iyo weliba neecawda macaan ayaa muujisay hooskooda oo midba midka kale uu hoos ka eeganayo waxaa ku soo lagu darsaday koox ardada ka mid ah oo aad ugu khushuucan siday isugu soo baxayaan markiiba waxaa lala soo booda sawiro farxad iyo qosol iyo reereen ay ka muuqato waana mid saa'ida wiil ka mid a ardada ayaa si kaftana u yidhi dalxiiska waxaa noo nuurinaya khaalid iyo hoodo inta la qoslay ayay gabar kalena tiri wacnaa laheedaa haddii ay lamaano noqdaan waxay tamashleeyaanba waxaa meel gaaban ka soo baxay hoodo habyarteed iyo wiilkii lala rabay waxayna dareemeen in labadan ay xiriir ka dhexayso wiilkii hoodo lala doonayay ayaa wuxuu isku dayay inuu hoodo gaar ula baxo balse intuu la hadlin ayay ardadu su'aalo kala hortageen wiilkii waxayna weydiiyeen ka waran siday isugu nuurayaan khaalid iyo hoodo isagoo jawaabin ayay ardadu mar kale ku yidhaahdeen saaxiib haddii ay lamaano noqdaan sidee ugu hambalyey lahayd
wiilkii markuu arkay xaalku halka uu marayo ayuu si dhab ah ugu qanciyey, wuxuuna ku yidhi, farxaddiinnu waa farxaddayda. ardadii oo farxaddooda xaddhaaf tahay, khaalid iyo hoodo oo dhoola caddeyn isku jaleecaya ayaa abbaar 5:15 galabnimo brofesor aadan dhammaantood ku wargeliyey inay si degdeg ah u diyaargaroobaan islamarkaana ay baabuurta fuulaan. qaybtii koowaad sheekadeennii calaf iyo jaceyl halkaas haynoo joogto. halkaad ka daawanayseen waa janalka markhaati. la soco qaybta xigta insha allah.